gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan xarunta CID-da ayay hadda gelayaan. gudoomiye waa kan xaruntii gelayaan. halkan waa xarunta CID-da. dib u geer nabadu gaadhay. dib u geer gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan oo xarunta CID-da looga yeedhay ayaa hadda gelaya. ciidamada ayaa iyaguna ku soo dhaweynaya gudoomiyaha. gaadhiga gudoomiyaha ayaa loo baneeyey inuu gudaha galo. sidoo kale waxaa la socdaa musaraxa xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan. warbaahin badan ayaa gabasha ku sugan. sidoo kalena saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa iyaguna jooga. CID-da ayaa u yeedhay. xogaya gudoomiye waa galay xarunta, maxaa loogu yeedhaa? gudoomiyaha waxaa loogu yeedhay dhaqanka caadadeen oo ah xukuumadahu markay sii dhacayaan ama daldalolooyinkoodu bato waxaa timaada inay idhahdaan hebelba wax naga sheega u yeedha. marka waa caado xukuumad sii dhacaysa weeyaan. marka waxaa loogu yeedhay madaxweynaha wax ka sheegta weeyaan. wayna arki doonaa haddii su'aala la weydiinayo maxaad u adeegsanaysaa xukuumadda sii dhacaysa? xukuumad waxaa keenaysa inu adeegsanaynaa sababta gudoomiye xisbi loogu yeedhi kara waxa weeyaan waa baqa ay ka qabaan ilaa maalintii la doortay xukuumaddaas may seexanoo may ledin ilaa maalintii gudoomiyaha la doortay. dhammaantood aad iyo aad bamaasan. arrimaha gudaha ayuu kaasi ahaa. sidoo kale saraakiisha xisbiga mucaaradka ucid ayaa iyaguna jooga. xasan waana kaygii xasan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan. xarunta CID-da ayay hadda gelayaan. gudoomiye waa kan xaruntii gelayaan. halkan waa xarunta CID-da. dib u geer nabadu gaadhay. dib u geer gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan oo xarunta CID-da looga yeedhay ayaa hadda gelaya. ciidamada ayaa iyaguna ku soo dhaweynaya gudoomiyaha. gaadhiga gudoomiyaha ayaa loo baneeyey inuu gudaha galo. sidoo kale waxaa la socdaa musaraxa xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan. warbaahin badan ayaa gabasha ku sugan. sidoo kalena saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa iyaguna jooga. CID-da ayaa u yeedhay. xogaya gudoomiye waa galay xarunta, maxaa loogu yeedhaa? gudoomiyaha waxaa loogu yeedhay dhaqanka caadadeen oo ah xukuumadahu markay sii dhacayaan ama daldalolooyinkoodu bato waxaa timaada inay idhahdaan hebelba wax naga sheega u yeedha. marka waa caado xukuumad sii dhacaysa weeyaan. marka waxaa loogu yeedhay madaxweynaha wax ka sheegta weeyaan. wayna arki doonaa haddii su'aala la weydiinayo maxaad u adeegsanaysaa xukuumadda sii dhacaysa? xukuumad waxaa keenaysa inu adeegsanaynaa sababta gudoomiye xisbi loogu yeedhi kara waxa weeyaan waa baqa ay ka qabaan ilaa maalintii la doortay xukuumaddaas may seexanoo may ledin ilaa maalintii gudoomiyaha la doortay. dhammaantood aad iyo aad bamaasan. arrimaha gudaha ayuu kaasi ahaa. sidoo kale saraakiisha xisbiga mucaaradka ucid ayaa iyaguna jooga. xasan waana kaygii xasan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan.
xarunta CID ayaa hadda gelayaan gudoomiye waa kan gelayaan halkan waa xarunta CID-da dib u geer nabadu gaari dib u geer gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaaji xasan oo xarunta CID-da looga yeedhay ayaa hadda gelaya ciidamada ayaa iyaguna ku soo dhoweynaya gudoomiyaha gaadhiga gudoomiyaha ayaa loo baneeyey inuu gudaha galo sidoo kale waxaa la socdaa musaraxa xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan warbaahin badan ayaa madasha ku sugan sidoo kalena saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa iyaguna jooga CID-da ayaa u yeedhay ogaya gudoomiye waa galay xarunta maxaa loogu yeedhaa gudoomiyaha waxaa loogu yeedhay dhaqanka caadadayna oo ah xukuumadahu markay sii dhacayaan ama goldololooyinkoodu bato waxaa timaada inay idhahdaan hebelba waxay naga sheega u yeedhay kika marka waa caado xukuumad sii dhacaysa weeyaan marka waxaa loogu yeedhay madaxweynaha wax ka sheegtay weeyaan wayna arki doonaa haddii su-aale la weydiinayo maxaad u adeegsanaysaa xukuumadda sii dhacaysa xukuumad waxaa keenaysa in u adeegsanaynaa sababta gudoomiye xisbi loogu yeedhi kara waxa weeyaan waa baqa ay ka qabaan ilaa maalintii la doortay xukuumaddaasi may seexanoo may ledin ilaa maantii gudoomiyaha la doortay dhammaantood aad iyo aad ba mahadsan arrimaha gudaha ayuu kaasi ahaa sidoo kale saraakiisha xisbiga mucaaradka ucud ayaa iyaguna jooga حسن وانا كيجي حسن